maamulka gobolka Banaadir iyo dowladda hoose ee Xamar iyagoo ku shaqeynaya dastuurka iyo shuruucda u degsan dalka isla markaasna ilaalinaya siyaasadda guud ee dalka iyo in uu ka hortago talaabo kasta oo wax u dhimaya shuruucda xeer hoosaadyada iyo heshiisyada lala galo hay'adaha kala duwan ee dalka iyadoo la tixraacayo heshiiska ku saabsan wareejinta iyo daadejinta adeegyada caafimaadka aasaasiga ee gobolka Banaadir una dhaxeeya wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka gobolka Banaadir kuna taariikhaysan 7 bisha 2 sanadka 2021 kaasi oo dhigaya qodobkiisa labaad farqadiisa ja iyo ma in maamulka gobolka Banaadir gaar ahaan agaasinka waaxda caafimaadka iyo daryeelka bulshada dowladda hoose ee Xamar ay mas'uul ka yihiin gacan ku haynta iyo maamulada isbitaalada Jazeera iyo Yardameli haddaba isbitaaladan sare ku xusan oo loogu talagalay in loogu adeego shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan bulshada ku dhaqan gobolka Banaadir si lacag la'aan ah ayaa wuxuu maamulka gobolka Banaadir ka war helay in hanaankii loogu talagalay in loogu adeego bulshada hanaan aan ahayn oo u muuqda mid ganacsi iyo mid gaar ahaaneed ay u adeegayaan isbitaaladaasi sare ku xusan sida daraadeed si loogu soo celiyo hanaanka adeega caafimaad ee lacag la'aanta isla markaana bulshada ku dhaqan caasimadda Muqdisho ay isbitaaladaasi ka helaan adeegyada ay ugu baahan yihiin wuxuu maamulka gobolka Banaadir ku wargelinayaa isbitaalada Jazeera iyo Yardameli in muddo 7 cisho ah gudahooda ay ku soo wareejiyaan maamulidda isbitaaladaasi isla markaana uu maamulka gobolka Banaadir muddadaasi ku magacaabi doono maamulka cusub ee uu yeelanayo isbitaaladaasi sare ku xusan sidoo kale mas'uuliyiinta warqadan ogeysiinta ku leh waxa iyaguna lagu wargelinayaa inay sidaas ula socdaan maasanadiin